munaasabadan oo ahayd mid seersan loo soo agaasimay iyadoo ay soo qaban qaabiyeen midowga gabdhaha ka qalin jabiyay macadka shareecada islaamka ee Al-Furqaan taasi oo ujeedadoodu ay soo bandhigida buug sanadlaha kaasoo ay quraanka gabdhaha ka baxay macadka shareecada islaamka ee Al-Furqaan ujeedada loo soo bandhigo buuggan sanadlaha ah ayaa ahaa sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa arrimaha ka hor imaanaya diinta iyo dhaqanka islaamka wareyntii waxaa madasha ka hadlay Sheekh Yuusuf Haybe oo ah maamulaha macadka shareecada islaamka ee Al-Furqaan iyo Sheekh Ahmed Maxamed Suleymaan oo ah madaxa dacwadda ee gobolka Sool iyagoo ka mahad celiyay gabdhaha qoray buuggan sanadlaha ah kaasoo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan gobolka Sool maanta joogno oo ay soo saarayaan gabdhihii hooyooyin iyo ayeeyooyin iyo gabdhaha ay saarayaan mutaqaa soo saarayaan kalimaadka qoray dadku u gudbinayaan runta wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay ma dhawa arrintu ma dhawa fakarkiina iyo dadaalkiina iyo waxa qabanaysan waa inaad ku wajahdaan bulshada meel kasta qaraarada iyo sifaansiyada laakiin qofku inuu dooq u yeesho ama iska jeclaado waxa hadi goor wax saacado ma badna waxa loo baahan yahay qofku inuu ka dhigto shaqada inuu xaqriyo oo ay yiraahdo culimada arrimaha uga hadlaan waxa ugu yaraan 3 saacadood ilaa 5 saacadood 24 saacadood fiican iyo qofku wax sameeyo oo la soo mowduuc inuu akhriyo marka xisaabtan beeyo qofka kale uu akhriyo uu aqoon baday oo uga saqaafad baday oo uga ilbaxsaya oo erayada luqadda carabiga iyo luqadaha kale u baranayo uga heliyay laakiin qof hadduu akhriyo weli halkii ma dhaaf waxa kale oo muhiim ah inuu soo gabagabeeyo qofka takhasuskiisa hadduu takhasus leeyahay inuu kutubta takhasuskiisa ama qoraalada waxa laga qoray takhasuskiisa وإنه هذا يقولوا أخيار سنادوا عليها كتبت كهذا يدور تدريسك كتبت كهذا وحيانا دنكودا كهذا الشيخ آدم علي النور الشيخ مبارك عبد الغني أو ظاهري عبد الرزاق نبيعه يقول لما أنتم بكل هذا أهمية داعية هذا القرآن كو يقول اللي يريد كبورية إنه وح قرآن حديث يقول أقول ما أنت تقولي كسر كذا سوابع كل الدارية من الحديث من وكذا سوابع تقولي بالله إنك إنجليز كانتي حاصل على ولاجة أمس marka caruurta toona badan baraan midowga ingiriis habaryarta baada muslim dad badan aqoonada muslim oo culimo ah oo wax badan fadhiya marka iyada laftigeeda si caalamka ee hadda gaalada iyaga lafti walbooda xoog ay ku haysaa arrintaas waddanka ingiriiskaan joognay wadamada ugu badan ku jira muslimay dadka aqoonta lagana muslimay marka waxaan rabaa inta nafka aqoonta laga faa'iidaysto ummadda hadday wax qorto ummad walba intay wax qorto waxna akhrido wuxuu gaarsiisan yahay horumarkeeda oo xataa waxa la yiraahdaa nuclearka iyo waxyaalaha waaweyn ee adduunka ku dagaalama ama la isku gumeystaba waxa kamid ah waxa lagu leeyahay technology inuu intii wax la akhriyo waxa la fahmo kadibna software ahaan la isugu diro oo dawladda laga yaabaa in loogu diray waxa weeye email ahaan kadibna waxa intii la akhriyay la daraasiyay laga soo saaray sheegi la fahmay marka akhrintu waa shay aad muhiim ah dadka kutubta akhriyana waddanka waa ka aqoon badan yihiin oo wax daarasaya marka inta insha Allah taala amari gabadha ku baraarugteen way majlis bay soo saareen Muxtaar Cabdi Jaamac Royal TV la saanad